أما ميريسو موسى وما ميريسو أما ميريسن وادكتيس عماشة ولقى ميريسو وقتها يقول ماضي وادكتيس كرسي قاعد عليه أدود ديديو ده كرسي قاعد كيديو ده دلغات كمدحني ماذا أولو جبه هاي وصفوين كمدحني ماذا كم تهاي دلغات marka inaan yaro Facebook ka qora haduu subaxii ilaa madaxweynaha la soo xiro waxaan Soomaaliland waa la xidhxidhi doonaa Maxamed Siyaad Barra waa la waxa loo keenay Jarmalka bari ugu dambeysay dhowr milyan oo katiinadood mudaharaadku wuu soconaya habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow u buuxa kutubashada iyo xadgudubka saxaafadda madaxa bannaan iyo xuquuqul insaan musharaxii mucaaradka shalay markii uu ahaa nacbaa caburinta saxaafadda kutumashada xorriyatul qowlka xadhigga dulmiga iyo tacaddiga loo geystay cid kasta oo dhalisho nidaamka xukuumadeed ee jiray markii uu kursiga ku guulaystay maxaa beddelay waa su'aal ay si weyn isku weydiinayaan malaayiin qof oo reer Somaliland ah iyo boqolaal kun oo u codeeyay murashax madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro oo ah madaxweynaha maanta madaxweyne Cirro miyaanu ahayn qofkii shalay toole dadka ay ku doorteen aragtida dimuqraadiyadda isla markaana aragtidiisa iyo oraahda uu geed walba la taagnaa ay ahayd waxaynu ka soo horjeednaa xorriyatul qowlka la dagaalamaya iyo cartuuq dheer sababay inay xukuumaddiisu saqda dhexe guryaha ugu daadato haween iyo cid kasta oo xukuumaddiisa ay wax ka qortay daawadayaal waxaynu barnaamijkan ku korfayn doonaa tacdiyada joogtada noqday ee xukuumaddiisu ka geysatay xorriyatul qowlka dad iyo muddo kooban ku soo dhowaada barnaamijkan oo ku korfayn doono mudaharaadku wuu soconaya habeen buu socon doonaa maalin buu socon doonaa maanta bilow u buuxa isbahaysiga mucaaradku waxa uu hadda u bilaabmaya shirar masiiri ah oo dalkan lagaga badbaadinayo keligii talisnimada iyo xukun qarqooshka dhawaana waxaanu idinla wadaagi doonaa go'aamada dalkan lagu badbaadin lahaa waa dhaqanka dictatoriska in ummadda xuquuqdooda la duutiyo xuquuqdooda asaasiga laga qaado موسى بيحي شرعي بكون نقضي مدحوينه شرعي درانا كما جوغي كراوي مدحوينه وقت جيسي ودا ماضي وحينو لنا هاي وارحال سياسي هلا قاعدة صدح هي طبعا نوفمبر كور هلا قاعدة حال سياسية هدي اللي قاعدة وايو ده مدحوينه نقول ميسي موسى بيحي وحينو لنا هاي أما ميريسو موسى وما ميريسو أما ميريسن وادكتيس عماشة ولقى ميريسو وقتها يقول ماضي وادكتيس sanad iyo bilo xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Cirro majaraha u haysay dalka Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xarkaha goostay xadhigga loo geystay qof kasta oo aragtidiisa ka dhibta aaladaha warbaahinta ee kala duwan sida Facebook mid wax ku qora mid mucaarad loo tiriyo xataa haween waxa loo leeyahay il gaar ah haddii ay meel ka mid ah warbaahinta wax ku qoraan ama ka yiraahdaan xukuumadda madaxweyne Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi Cirro ayaa noqotay mid dagaal jiho badan ah ku qaaday sidii ay u ciribtiri lahayd xorriyatul qowlka iyo cid kasta oo aragtidooda ku dhaliisha haddaba daawadayaal su'aashu waa maxaa beddelay hogaamiyihii nacbaa xadhigga dulmiga awood sheegashada iyo xorriyatul qowlka oo la dagaalamo jawaabta waxaynu dhaafi doonaa daawadayaasha barnaamijka sidoo kale daawadayaal barnaamijka meel dheer gaarsiiye fadlan like share kursiga ayaa dalay aduud diidayo ده كرسي جالس كده هذا حراقة يديها كده والله عاية ده دلغات كمدحني ماذا ولو جبه هاي وصفوين كمدحني ماذا كمت هاي دلغات marka inaan yaro Facebook ka qora haduu subaxii ilaa madaxweynaha la soo xiro waxaan Soomaaliland waa la xidhxidhi doonaa
maxamed siyaad barraa waa la yidhi waxaa loo keenay jarmalka bari berigii ugu dambeysay dhowr milyan oo katiinadood waxaa loogu talagalay qof kasta in lagu xidho xabad berigii dambe maraykanka lagu laayay xamar ayuu maraykanka ugu tagaalay nigeria wuxuu kuwi dadka si aad u xukumi jirtay dad waaloo jeel ku jira iga sii daysay buu yidhi markaa somaliland wuxuu doonaya inuu jeel ka dhigo muuse oo caaqilka xidho oo saxafiga xidho oo xisbiyahanka xidho xarigga bishaaro wuxuu marag cad ka yahay xadgudubka ku tumashada dastuurka ku tumashada iyo xadgudubka saxaafadda madaxa bannaan iyo xuquuqul insaanka waxaa halkaa ka soo baxay xarigga bishaare iyo kuwo kaloo ka horreeyay kuwo ka dambeyn doonaba inaan muwaadin aan la garanayn cidda uu xidhan yahay soo baxay oo qof kasta ka baqanayo kuu yahay kuu loo xidhay waxaa soo baxay muwaadin aan dembi loo haynin in la xidho dabeedna muddo ay qaadato in kiis loo sameeyo iyadoon wax dembiya loo haynin caadad baanay noqotay qofka markuu muddo xidhnaado ee lagu xadgudbo ee xuquuqdiisa lagu tunto in la yidhaha waa la iska soo daayay aada iyo aad baanu uga xunnahay ugana xumayn xarigga bishaaro iyo qof kastoo muwaadina oo lagu xadgudboba waxaan rajaynaynaa in xukuumadda hadda joogta oo tii ugu tacadiga badnayd ee ugu xadhigga badnayd saxaafadda madaxa bannaan siyaasiyiinta iyo shacbigaba inay ka waantowdo xadgudubkaa joogtada ah aan lagu gafin lagu xadgudbin muwaadiniinta xuquuqda dastuurku siiyey